kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu doorroona waxaa ka mid ah qorshe uu damacsan yahay Axmed Madoobe oo si adag loogu soo horjeestay dilal qorsheysan oo ka dhana laba qof oo ka dhacay magaalada Hargeysa al-shabaab oo sheegtay bartilmaameedka qaraxii ka dhacay agagaarka Hotel Muna akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu doorroon Sacuudiga oo sheegay in gantaalo lagu soo weeraray magaalada barakeysan ee Makka qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warka dalka media balse aan ku bilaabo maamulka Jubbaland qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qorshe ay sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay in aysan ku qanacsanayn habka loo doonayo in loo soo xulo xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in asaga iyo dadka ku aragtida ah ay ka digayaan in faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland odayaasha dhaqanka ayuu tilmaamay in ay doonayaan in loo madax baneeyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland xildhibaanka ayaa wuxuu tilmaamay in golaha ay ka soo horjeedaan qaabka xulista baarlamaanka ee hadda loo wado taasi oo ah in beel kasta ay guddi doorashooyinka u soo gudbiyeen 3 musharax oo u tartamaya xildhibaanada baarlamaanka si midkii ay doonayaan uu soo baxo xubno ka tirsan musharaxiinta oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in qorshaha xulista baarlamaanka Jubbaland uu yahay mid uu wato madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam isla markaana uu doonayo inuu dib ugu soo laabto inta badan madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa lagu eedeynayaa in doorashada baarlamaanka maamulka Jubbaland uu soo xulanayo isla markaana uu rabo in doorashada uu mar kale ku guuleysto magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay dilka qorsheysan ee loo geysanayo shacabka 48 saac u dambeeyay ayaa waxa isbitaalka Hargeysa la keenay 2 ruux oo meyd ah sida dadka deegaanka ay sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa sheegay in 2 ruux loo dilay qaab qorsheysan 2 ruux ee meydkooda la keenay isbitaalka magaalada Hargeysa ayaa midkood waxa laga soo saaray cilbiyood oo ku yaala koonfurta Hargeysa halka ruux kalena lagu dilay guri ku yaala xaafadda Ibrahim Kood oo meydkiisa laga soo qaaday kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen in lagu dilay shirqool waxa sidoo kale dhowaan isbitaalka magaalada Hargeysa gudihiisa lagu dilay ama lagu qaarajiyay nin ka howlgali jiray shirkadda korontada ee Sunpower muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ku soo badanayay dilka qorsheysan kuwaasi oo inta badan lagu bartilmaameedsado dadka shacabka ah iyo waliba shaqaalaha ka howlgala shirkadaha gaarka loo leeyahay ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa dilkaasi qaar ka mid ah u soo qabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen sida dadka deegaanka ay sheegeen laamaha ammaanka ayaan wali wax war ka soo bixin dilkaasi ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ururka al-shabaab ayaa ka hadlay qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ku qarxay agagaarka barxadda iskaashtooyinka ururka al-shabaab ayaa sheegay in iyaga ay ka dambeeyeen mas'uuliyadda qaraxa ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxayna sheegeen inay la eegteen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxay al-shabaab sheegteen in qaraxa uu haleelay gaari Cabdibilaa oo ay sheegeen inay saarnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee gobolka Banaadir balse aysan sheegeen waxyaalo inay ka soo gaartay taasi bedelkeeda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in khasaaro uusan ka dhalan qaraxa ka dhacay xalay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay sidoo kale taliska booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen wadihii gaarigaasi shakhsiyaad kale oo lagu tuhunsan yahay inay ku leeyihiin qaraxa ka dhacay agagaarka iskaashtooyinka ee u dhow madaxtooyada Soomaaliya laamaha ammaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay sameynayeen baaritaano ay ku baadagoobayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona baaritaanadaasi qaarkood lagu soo qabtay xubno ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen booliiska Soomaaliya dawladda Sacuudiga ayaa maanta sheegtay in kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ay gantaalo ku soo tuureen magaalada barakeysan ee Makka balse dhaxda laga qabtay telefishinka al-Carabiya ee Sacuudiga laga leeyahay oo soo xiganaya goobjoogayaal ayaa maanta sheegay in ciidamada difaaca Sacuudiga ay hawada magaalooyinka Taif iyo Jiddah ka qabteen 2 gantaalo ay soo tuureen Xuutiyiinta Yemen mid ka mid ah gantaalada ayaa ku socday magaalada Makka sida lagu sheegay warbixinta telefishinka ka soo baxday si kastaba Xuutiyiinta ayaa si kulul u beeniyay wararka isla markaana sheegay inuu yahay ololo been abuur ah oo Sacuudiga uu wato maamulka Sacuudiga waxa uu isaga oo adeegsanaya eedeymahan
isku dayaya inuu taageero u raadiyo gardarrada foosha xun ee ka dhanka ah shacabkeena Yemen. waxaa sidaasi yiri afyeen u hadlay militariga Xuutiyiinta. isbahaysiga Sacuudiga oo hogaaminayo Imaaraadka oo uu ka mid yahay ayaa muddo 4 sano dalka Yemen kula dagaalama Xuutiyiinta. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xiisad xooggan ay ka taagan tahay khaliijka, taasi oo u dhaxaysa Iiraan oo taageersan Xuutiyiinta iyo dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Mareykanka oo dhinaca. Xuutiyiinta ayaa toddobaadkii tagay diyaarado aan duuliye lahayn ku weeraro goobo laga soo saaro shidaalka oo ku yaala magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.